mar kale ayaan ku soo laabtay anigoo ah Guulad Cabdullaahi Axmed Afrax oo baafinayay hooyaday oo meelay ku sugan tahay aan garanaynin adduunyada. waxaan dhashay 1984 dhammaadkeedii. waxaan ku dhashay degmada Howlwadaag. aabahayna wuxuu ka tirsanayay ciidankii gulwadayaasha. aabahay waa caan Cabdullaahi Axmed Afrax, Cabdullaahi Afdheere ayaa la yiraahdaa. marka waxaan baafinayaa waa hooyaday. aabahay hooyaday si ay ku kala tageenba kolley aniga aabahay ayaa hooyo iga soo qaatay. mar waxaa la ii sheegay aabahay in ay hooyo isqabteen waalidiinta aabahay, hooyadii waalidiinteeda iyo aabahay inay isqabteen. markaas in aniga sidaa darteed la soo qaatay anoo caloosha ku jira la isqabtay. kadibna waa laga soo qaaday hooyaday. waxaa lagu heshiiyey aaba in lagu wareejiyo. aaba markii laga soo qaaday wax yar markaan joogay, bil intaana joogin, wuxuu ii dhiibay eedadiis oo aniga ayeeye ii ah, oo magaceeda lagu magacaabo Nuuraddiin Geedi, oo maanta hooyada qaaliga aan haysto hooyadeedii labaad ah, oo dhib la-aan dhashay, oo dhiigeedii dhacankeeda aan maanta ku joogo, oo intaan kula soo ekaaday. ilaahay madaxeeda ha raajiyo hana iyo xafido. hadda waxaan baafinayaa hooyaday. kolley hooyaday way garanaysaa, ayada ay dhashay. aabahay hadda magaciisa baafiyo hooyaday way garanaysaa. kolley wixii hooyaday aabahay dhexmara aniga waxba sas kama ogi. waalidiinteydana markaa adeerayaashay aan weydiiyey, aabahay nin dadka ugu weyn u ahaa, waxba lama uusan wadaagin. waan weydiiyey aniga. waa la ifogeeyey, gobolada dhexaa la igeeyey. 5 sano ama 6 sano kusoo qaatay. waan soo laabtay. magaalada Muqdishona way burbursaneed markaas, dadkii waa la kala qaxay. dabcan hooyadii dadkii qaxay inay ka mid taha laga yaabaa. ani maanta hooyadii magaceeda iyo qabiilkeeda ma garanayo, laakiin intaas waan aamusanayo. waxaan isleeyahay dabcan hooyada maanta ayada qof wax dhalo waaye way kusoo raadin doontaa, laakiin ma aysan dhicin. kolley xaalad inay jirta iska dhici karto. hooyadii ama ay caafimaad qabin ama ay dhimatay. kolley haddii hooyadii dad baa la dhashay, hadday dhimatay iyo haddaysan caafimaad qabin, kolley dadkaas Facebook haddii loo sheer gareeyo codkaygan iyo videogan soo duubay way arkayaan. ilaahay waxaan ka rajeynayaa inaan si fudud u helo. muddo badan ayaan samrayay, oon isleeyahay waxaa suurtagal hooyada waalida oo aabaha taqaano way kusoo raadi kartaa. maxaa yeelay qofka haddii aadan magaciisa iyo qabiilkiisa garanayn kuma fududo inaad raadiso. shacabweynaha Soomaaliyeed ee muslimiinta waa bil Ramadaan, waxaan ka codsanayaa in ay videogan ay share gareeyaan. waxaan leeyahay Ramadaan mubaarak, Ramadaanul Kariim. bisha Ramadaan ilaahay khayrkeeda ummadda muslimiinta coronavirus iyo cudurrada ha uga qaado. dalkeenna ilaahay nabad ha nooga dhigo. wassalaamu calaykum waraxmatullah.